ma jeceshahay inaad buugaag badan akhrisid ma doonaysaa inaad sare u qaadid speedka wax akhriskaaga haddaba ila soco waxaan kula wadaagayaa 4 qaacido haddii aad raacdid kaa caawinaysa inaad speedka wax akhriskaaga sare u qaadid buugaag badan aad ku akhrin kartid kadibna aad ku kobcin kartid aqoontaada iyo xirfadaada iyo cilmigaaga midda koowaad mar walba aad wax akhrinaysid waxaa la doonayaa inaad iska ilaalisid inaad ku dhawaaqdid waxa aad akhrinaysid si automatic ah ay mararka qaar kaaga soo baxaysaa waxa akhrinaysid waa ku dhawaaqaysaa taasna waxay culays u keenaysaa speedkii aad ku akhrin lahayd ereyadii iyo qaabkii aad waxa u akhrinaysay ayaa hoos u dhacayo waxaa la dhahaa internal monologue waxaa la rabaa internal monologaas inaad jirtid internal monologue waxaa la dhahaa waa cod kugu jiro maskaxdaada oo akhrinayo waxa aad ma aragtay markaas fiirinaysid haddii aad joojisid aad iska xirtid internal monologaas dhammaantiis oo keliya aad indhahaaga iyo akhriska isla socdaan maskaxdana aad kala socotid waxay kaa caawinaysaa inaad si fudud oo speed ah aad ku akhrisid tusaale ahaan markaa waddada maraysid haddii aad aragtid board weyn oo ku qoran school ma ku dhawaaqaysaa intaa istaagtid maa dhehaysaa school mise automatically maskaxdaada markaa aragtid way akhrisay wana ka soconaysaa wana fahmaysaa ama adoo gaari wadoo kale calaamad weyn oo waxaa aragtay stop ku qoran stop maa dhehaysaa ma ku dhawaaqaysaa maya marka buugga akhrinaysidna sidaas camalaa la rabaa inaadan ku dhawaaqin si automatiga maskaxdaada iyo akhriskii inay iskula socdaan farsamada labaad oo aad isticmaali kartid oo speedkaaga aad sare ugu qaadi kartid waa inaad farta saartid waxa akhrinaysid bogga aad akhrinaysid leenka aad maraysid hoostiisa farta haddaa saartid oo aad kula socotid indhahaaga waxay kaa caawinaysaa in indhahaaga ay focus gareeyaan leenka aad dul maraysid maxaa yeelay indhaha bini'aadanka stable ma aha kun erey ay arkayaan meelo badan ayay fiirinayaan toos maaragtay uma abaari karaan meesha ay akhrinayaan taasna hadhow waxay kugu kalifaysaa in waxyaabo badan iskaga kaa dhex qasmaan mararka qaar soomaad arkin adoo akhrinayo leenkii aad maraysa xataa inaad garan weysid taas marka waxaa waaye indhahaaga ayaa marba meel ku dhacayo si aa indhahaaga focuskooda u ilaalisid waxaa la rabaa leenka inaa marka farta saartid hoostiisa meesha akhrinaysid saas bidix ilaa midig aa kula socotid kadibna indhahaaga markaas waxay ku adkaynayaan focuska meesha markaas fartaada ay marayso waxaa la dhahaa marka visual tracker visual trackerka wuxuu ka caawinaa inuu indhahaaga hago meesha ay akhrinayaan inuu markaas u tilmaamo qalina isticmaali kartaa haddaad screen wax ka akhrinaysid farta waa saari kartaa ama wax kaloo ka caawiya isticmaali kartaa farsamada saddexaad oo aad isticmaali kartid waxaa weeyaan sharciga la dhaho 80-20 rule 80-20 rule waxaa weeyaan boqolkiiba 20 keliya laga yaabaa inaad buugga ka akhrisid oo aad ka fahantid nuxurka buugga boqolkiiba 80 inaa intaas kaaga soo baxdo micnaheedu waxaa weeyaan inaada buugga dhan wada akhrinin cover to cover inaad akhrinin tusaale ahaan hadduu buugga yahay non fiction buug oo wax sax laga qoray uu yahay oo sheeko la sameeyey inay ahayn waxaa laga yaaba inaad tagtid maaragtay bogga u hore oo lagu qoro jabtarada uu ka kooban yahay jabtarada ugu muhiimsan ayaad ka akhrinaysaa wana ka soconaysaa tusaale ahaan waxaa laga yaabaa jabtarka saddexaad adoo maraya inaad ku aragtay jabtarka labaad wax lasoo sheegay inay ku jirto waa ka boodaysaa jabtarka oo shanaada u boodi kartaa buugga muhiimadiisa iyo nuxurkiisa dhan ayaa raadsanaysaa inta kale dhan waa ka boodaysaa qasab maaha inaad buugga wada akhrisid hadduu yahay buugga fiction oo sheeko la sameeyey waxaa laga yaaba inay sheekadu kaa kala go'do markaas ay ku dhaafto hadduu buugga kugu socon waayo buugga dhan iska dhaafaysaa ma ka boboodi kartid micnaha laakiin buwaagta caadiga ah oo aan fictionka ahayn waxaad ka heli kartaa waxaad samayn kartaa farsamo ah wixii ku anfacaad ka akhrin kartaa wixii kalena waa ka tegi kartaa waxaa suuragala markaas boqolkiiba 80 buugga nuxurkiisii iyo muhiimadiisii iyo waxaa ku jira inaad fahantay adoona wada akhrinin buugga dhan farsamada afaraad oo aad isticmaali kartid waxaa weeyaan inaad go'aansatid xilli aad akhrisid iyo goob munaasab ku ah aad wax ku akhrisid haddii aadan go'aansanin xilli iyo goob qaas ahaan weliba xilliga aad wax akhrinaysa hadduusan ku go'nayn wax suuragala inaadan marnaba jaanis u helin maxaa yeelay dadka waa la wada mashquulsan yahay jaanis iyo fursad aad wax ku akhrisid inaada helin baa laga yaabaa marka waxaa la rabaa subaxii oo kale waqtiga maaragtay aroortii oo kale markaa soo kacdid galbihii oo kale habeenkii markaa seexanaysid oo kale xilliga adiga kugu habboon haddaad maaragtay safar tahay oo bas ama train aa saaran tahay inaad train ku dhex akhrisan kartid inaad xilli kuu go'an aad isticmaashid inaad wax ku akhrisid waxay ka caawinaysaa markaas in consistency aad lahaatid mar walbana aad joogtaysid waxa aad akhrinaysid saas darteedna markaas ay kugu fududaato inaad buwaag badan ku akhrisid afartaas qaacido haddii aad raacdid waxaan hubaa inay wax badan ka beddelayso akhriskaaga iyo
inay kobcinayso speedka aad wax ku akhrisid. Waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka fahantay. Fadlan la wadaag asxaabtaada. Haddii ay jirto farsamooyin kale oo kuu shaqeeyay, nala wadaag ayagana commentiga hoos iigu soo qor. Waa mahadsantahay.